shabaabna waxaan u aqaan dad muslimiin inay sasan u aqaan ayaga u yaqaan ku xukumaay oo maxkamadda ay geeyeen mar qof kale warkiisna ay sheegto shakhsiyadaada anigu shakhsiyadayda shabaabka maxaa ka aaminsan waxaan u aqaanaa inay dad muslimiin yihiin Soomaalidu miyaan muslim ahayn boqolkiiba boqol no Soomaalidu muslim boqolkiiba boqol waxa la ii xiray oo anigu aan u xirnaa aan isku xukunaa kitaabka sunna dimuqraadiyadu waa qalad dastuurkan qalad waay waxaan meeshaan yaalahay taaquud waay saas la xiraani dilka Soomaaliya ka socda ama shabaab waxa qarxiyeen Sufyaan mid ah in kitaab iyo sunno guud ahaan wadankeena lagu xukumo waynu ku tagi doonaa waa dood dheer oo ay u baahan tahay in su'aalo dhowr laga weydiiyo laakiin in Sufyaan la soo xiro oo dawladda Soomaaliya ay Muqdisho keento waxa la oran karaa waxa sabab u ah waraysiyo hore uu bixiyay qaybtoodna laga daaray maxkamadda haddii aan dib ugu laabano Sufyaan dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed xoogoodu waxay dagaal kula jiraan kooxda shabaab la yiraahdo mar kale aan ku weydiiyay maxaa ka aaminsan tahay dagaalka shabaab adigu waxaad og tahay maxkamadda markii la saarayay wixii ugu darnaa ee lagu marmarsiyooday waxay ahaayeen ninkaani al-shabaab uu taageersan yahay macnaha al-shabaab inaan ahayn waa ogaayeen waa taageersan yahay boqolaal maraan waxaan idhi ka hor anagu shabaab ma naqaano qayb kama nihin xiriir lama lihin mana taageersanin haddana waxaan ku leeyahay shacabka Soomaaliya leeyahay sidii aan hore u dhihi jiray shabaab anagu ma naqaano taageero uma hayno xiriir lama lihin waxna kama naqaano koox marka aan waxba ka aqoonin xiriir aadan la lahayn aadan taageero u ahayn maxadii lagu weydiyo lagu raado maxaad ka aaminsan tahay waxa kale oo dhihi kartaa waa waxa taqaan maxaan iri waa koox dagaal ku jirtaan ilaa wax kale oo ka aqaana ma la moogtay iyadii marka waxa la dhigay dambi see u dhahe wax koox dagaal ku jirta ma nala caydid ma dhahdid waa khawaarij waa gaal ma dhahdid ujeedadu intaas waa marka waxaan go'aansanay waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego marka hore anigu shabaab weligay wax xiriir lama sameyn ma taageersani qaybna kama ihi anagu waxaan xisbi siyaasadeed oo islaami oo siyaasadooda madax banaan wata ma aaminsan in dhiiga Soomaaliyeed la daadiyo ma rabno midka shabaabka inuu dhinto askarigu inuu dhinto qofka Soomaaliga ku dawladda ku jira xildhibaanadu hal qof inuu naga dhinto ma rabno hal qof oo naga go'aama jiro we don't want that waxaana marka si nabad inaan ku gaarno hadafka aan leenahay hadafkeenu kaas waa Sufyaan qofka shabaabka ah ama ninka shabaabka ah ee inta gaari qarax ka soo buuxiyo dad Soomaaliyeed oo waxba aan galabsan oo muslimiina oo saa'imiina ku qarxinaya wadooyinka Muqdisho ay dhigoo daadinayo diinta islaamka maxay u taqaanaa waxaan u maleynayaa marka aan hoos u daadegno anagu xisbiga tala ku nool qaacidadan leena waxa weeyaan xisbi inta la gaarin ba waxaan rabaa shakhsiyadaada ma shakhsiyadaydu waa xisbiga aniga xisbi waxaan gudoomiyana hoggaan xisbi ah siyaasadan leeyahay siyaasadayda iyo waxaan ku weydiiyay xisbi kuma saabsan waa diin ana ku sheegayba siyaasadayda iyo xisbigu iyo aniga shakhsiyadoodu sidaas waa isku dhafan yihiin soo aan kaaga jawaabo su'aashaas dilka Soomaaliya ka socda ama shabaab waxa qarxiyeen ama dawladdu waxa disho waa qaracan iyo dhibaato Soomaaliya u soo hoyday in hal qof oo Soomaali u dhinto Soomaalina ma ka tagba waxaan u hadlaynaa si muslimnimo macna yani qofkan qof muslim ah diinta islaamka haysta oo aan ku iri kitaab sunna ku dhaqmo sooman wadadaasi maraya ninka dilaa annaga sida diinta islaamku ay qabto dhiiga dadka muslimiinta in la daadiyo waa ka soo jeedo qofka daadiya xukunkiisu oo xalaalaysta haddaad fiiri qofna waa qof asagoo target kale u socda wax dila qofna waa qof xalaalaysta qofka bini'aadamka ee xalaalaysta dhiiga muslimiinta inuu daadiyo waa qof diinta islaamka banaanka ka hadduu xalaalaysto inuu daadiyo oo uu yiraahdo waxaan xalaalaysanay dadka muslimiinta dhiigooda inaan daadino oo si dhab ah u xalaalaysto qofkaas diinta islaamka laakiin ficilada la hayaayo lama hayo hadal waxaan leenahay anagu fiiri ma rabno inaan xukunno waxaan waxba ka ogeyn ma rabno inaan xukunno wax naloo sheegay anagu waxaan nahay dad muslimiina waxaan dad siyaasiyiin waxaan dad intaas san wax baranay qof bini aadana ama hadal ay soo yeeriyeen miidiyaha ama dadku ay yiraahdeen waxba ku xukumi mayno waxaan xukumaynaa qaala Allah wa qaala rasuulullah waa ku shan waxaan ku yiri qofkii banaysta dhiiga muslimiinta in uu daadiyo ama dadka muslimiinta inuu dilo oo yiraahdo dadka muslimiinta waa leynaya banaanku diinta ka yahay qof muslima oo Muqdisho ku nool miyay jiro Soomaalidu miyaan muslim ahayn boqolkiiba boqol no Soomaalidu muslim boqolkiiba boqol Soomaalidu muslim haday boqolkiiba boqol tahay aniga la ima soo xiran hal isku xukumo kitaab sunna adiga ma qaataan meeshan waxa lagu soo xiray inaad diiday inaad tiraahdo dagaalka lagu jiro shabaab waa mid sax ah maadaama dad Soomaaliyeed ay leeynayaan saas la ima soo xirin waxa la ii xiray waxaas waxay ahayn marmarsi ahayn waxa la ii xiray oo anigu aan u xirnaa aan isku xukunaa kitaab sunna
dimuqraadiyadu waa qalad dastuurkaana qalad waay waxaan meeshaan yaalahay daaquud waay saasaa la xiraani xarigayga kaas waay sababtan waa kuu sheegaa haddii aniga dowladdii Kenya ay baartay oo layga waayay wax inaa leekaatay inaan shabaab xataa wax lagu kuleeya kuwaana ay baareen oo iga waayeen wax macnaha waxay igu eedeen waxa kamid ahaa ninkaani waa takfiir waa shabaab takfiir shabaab isma galaan waa labo mawjudoodo kala duwan waayo oo gaalo isu yaqaan because takfiir nimanka la jamaa islaamiga shabaab gaalo yaqaan soo aan ku dhameeyo macnaha marka saas leeyahay wax waay waa marmarsiyo waay ani waxa la xiray kaliya inaan iri aan isku xukunno alkitaab wa sunna cidii diidana waa gaalo intaas la xiray waxaan rabaa takfiir iyo shabaab ba hadda ka hadash oo aad tiri isma galaan shabaab maxaa u taqaan adigu shabaabna waxa u naqaan dad muslimiin inay yihiin sasan waqaan ayaga u yaqaan ku xukumaay oo maxkamadda ay geeyay mar qof kale warkiisna ay sheegto shakhsiyadaada anigu shakhsiyadayda shabaabka maxaa ka aaminsan waxaan u aqaanaa inay dad muslimiin yihiin warkaygu waa cadi wariye farcada haddaad i tusto meel ay ku yiraahdeen dhiigga muslimiintu waa noo bannaan yahay dhiigga muslimiintu waa noo bannaan yahay meel ay ku yiraahdeen haddaa isto daqiiqadan aan joogo ka shaki maayo inaan iraahdo gaalo waa tahay qiyaastii sanadkii 2021 dabyaaqadeedii waxaa jira qarax ka dhacay magaaladan gaar ahaan ex control afgooye oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ku baabi'een oo boqolaal ka badan shabaab ayaana sheegtay mas'uuliyadaas dadkaas muslimiinta oo ay laayeen oo aanay wax daliila iyo wax toona aysan u haysan maxay ka dhigan tahay taas ma aysan wax muuqdo waa qalad simple waa qalad annagu xisbiga tala kun ladana kuma raacsanin waa ka xunnahay waana qalad hadda in shabaabkii ay dad laayaan waa qalad aad leedahay marka kalena waxaa leedahay waa dad muslimiin ah warkaas bal istar adigu dadka muslimiinta qalad waa ka dhacaa ama qof in u dilaha qofku diinta islaamka inaad qof disho maanta dad qof disho gaal ma yid diinta islaamka waa dambi oo kale waa dambi aad soo haddii ay dad dileen macnaha in shacab Soomaaliyeed la dilo oo qof Soomaali la dilo dhiigiisa la daadiyo ama shabaab ha ahaado ama askari ha ahaado ama ha ahaado xildhibaan ama mid gaalnimo qirtay oo dhahay anu gaalaana ha ahaado xisbiga tala kuna waa ka soo horjeedaan anagu qof in hantidiisa isagoo aan raali ka ahayn laga qaado in lagu qasbo ila shaqay in la yiraahdo in la dilo saddexdaasi oo qodob oo la isku geeyo waa calaamad ay ku sifeeyeen nimankan aad leedahay waa muslimiin oo aad leedahay dad caadi weeyaan oo macnaha wax waaye lama rabo bahasha in dhinac kale loo jeediyo in shabaab cid dhaxaysa maanta xataa culimada la jirta oo nimankan taageeraya oo ka soo horjeeday ma dhahan gaalo marka waxba ha ku daalin inay muslimiin yihiin maya waa la isku raacsan yahay waxa kaliya la yiraahdaa waa khawaarij ikhwaanana baw walaalaheena qooqay oo kibray saas la yiraahdaa maahane cid dhahaysa maanta gaalo waay ma jirto haddaba gaalo ka hadli mayno laakiin in khawaarijto la cadeeyo maya aniga su'aasha anaad weydiisay in qof Soomaaliya dhiigiisa la dilo la daadiyo in dadka la qarxiyo in hantida dadka la qaato in qof qasab wax loogu diro waa qalad waa ka soo horjeednaa anagu mar kale ku weydiinaya dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxay kula jiraan dagaal al-shabaab dagaalkaas ma yahay mid xaq ah dagaalkaas dawladda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dagaalka Soomaaliya ka jira oo maantay ka socdaay ma aha dagaal Soomaaliya ay iska leedahay dagaal Soomaaliyeed ma mawduuca ka gudbin ma ka gudbaayo waaba ku sheegaba dagaal Soomaaliyeed waxa dagaalka ku jira Soomaaliya kula jira waa Mareykanka iyo xulufadiisa intayna Mareykan u gudbin Soomaalida inaan ku ekaano Soomaaliya waa ku tagi doona Mareykan Soomaaliya jabtir 7 waay wariye farcade Soomaaliya jabtir 7 lagu maamulaa Soomaali macnaha ninka maanta wadankan leeyahay waa u taliya ma go'aansan karo markuu dagaalka qaadayo cidda la dagaalamayo ma go'aansan karo waqtiga la joojinayo ma go'aansan karo yaa dagaalamayo marka been ma isu sheegaynaa lama rabo in dadka Soomaaliyeed been loo boodo lama rabo oo loo kiciyo been dagaalka maanta Soomaaliya ka socda bilowgiisa ilaa dhamaadkiisa Mareykanka iska leh asaawta wuxuu ugu talagalay shacabka Soomaaliyeed inay isku dhamaadaan wuxuu ugu talagalay dadku inay isdilaan waxa loogu talagalay inaanan weligeyn degin asaguna uu khayraadka wadankeena iska dhuuqo saas waa qorsho wiilka Soomaaliyeed ee diiday in xoolihiisii ay shabaabku banaystaan oo ay qaataan ee qoriga qaatay iska difaacaya ee hantidiisii ka hortagaya ma Mareykan madrasada waxa Mareykan uu ninka Soomaaliyeed fiiri markaan hoos u baxda joog ama amaara joog dhageysaade markaan hoos u degno
dagaalka kore marka la horiyo dabka kore marka la horiyo waxaa ka dhalanaya wax badanaa ka dhalanaya ninka camaaro jooga saad u sheegtay ee hantidiisa difaacanaya xaq u leeyahay hadduu ku dhinto asagoo wixiisa difaacanayna shahiid waa cirdigiisa sharaftiisa hantidiisa hadduu u dhinto asagoo difaacanaya xaq u leeyahay shahiidna waa waxaan ka hadlaynaa marka ma aha meelaha hoosoo dacaayadda ah waddankan dagaala ka socda intaas sano dagaal ka socday maalintaan anigu 91 aan waddanka ka tagay 91 ilaa dagaal ka socda dadana horinaya wadamo ajaaniba horinaya dagaalkan ayagaa wada lama rabo marka dadka Soomaaliyeed isku soo laabano in anagii farta isku fiirno dhahno saan waay waxa wada dagaalkan Mareykanaa wada diyaaradihiisa ku jira ciidamadiisa ku jira hantidiisa ku jirta asaga dhaqaalaha bixinaya 5 fariisimood xero cusub 5 new bases oo ka sameeyay hadda inta anagu xirna 5 new bases awal la bulaa 7 meelo wada ku leeyahay marka inaan been isu sheegno oo dhahno dadka Soomaaliyeed anagu aan ku farxno oo dhahno qolana ay tiraahdo waxa weeyaan anagu waxaan la dagaalameynaa waxaan dilaynaa gaalo kuwa kale ay yiraahdaan waxaan dilaynaa khawaarij ay yiraahdaan waxa ka shaqeeyay gacan shisha ka shaqeysay waana wax ka soo horjeeda wadankeena Soomaaliya dantiisa anagu xisbiga tala kuna daan waxaan rabnaa inaan dhamayno dagaalkaas waxaan rabnaa inuu dagaalkaas naga dhamaado